guraad un hadal yacni dhur kula gariiray oo la yaabtay la naxday ay u qaadan weyday inaa ilmo yar caloosha kugu jiro. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan rajaynaya dhammaantiin bani wada fiican tihiin. haddaba ayaamahan fiidooyo maan soo dhigin sababtoo ana yara mashquulay, saa daraateed hadda channelkeenan cidda ku xidhan waxaan aan sameeyey hadda in wiigii 2 cisho aan wax soo dhigayo, oo 2 cishoba fiidooyo kala duwan aan soo dhigi doono insha allah, oo aynan qisooyin aynan ku koobnaan doonin. haddaba maanta qisada nii wado waxa weeyaan, horta anigu qisadooyinka badankaan soo qaato waxa weeyaan waa qisooyin carabta ka dhacay ama qisooyin caraba laga sheekeeyo oon isku dayay inaan Soomaali u bedelo. markaas qisada sidan ku bilaabmaysaa. ku noolaa carabta Najlaa familygooda waxay ku noolaayeen carabta, waxay la dhalatay 3 wiil bay la dhalatay, inana lama dhalan iyadun baa inaan ahayd. Najlaa maadaama ay keli ahayd oo ayna wax inana la dhalan, waxay dareentay keli si kasta ay gariid dareentaba ilaahay waxa ugu deeqay saaxiibadaas la oran jiray Iimaan. saaxiibadaasoo iyadoo dhanka Najlaa ay ka ahayd walaal iyo wax kastaba. taasna waxaa ka baxday cilada ay dareemisay. adigoo hadal yaan inagu daadin inantii Iimaan la dhahdo ay saaxiib noqdeen, saaxiib lilaahiya, yacni aad bay isku jeclaayeen, iskuulkii wada dhigan jireen, isu kalaas bay haayeen ilaa yaraantii ilaa heer jaamacadeed. deeta markii heer jaamacadeed ay gaadheen waxaa dhacday maalintii Najlaa ay nolosheeda xumaatay ayaa timaaday. maalintaasna waxaan oran karnaa waa markay gaadhay heerka jaamacadeed. haddaba Najlaa iyagiyo sidii Iimaan u wada dhiganaya jaamacadda ayaa waxaa dhacday inay Najlaa ay ka dareentay Iimaan isbedel xooga oo ku yimaada dhanka Iimaan, oo dhankii dadkii ay iska wada fogaato, oo jaamacaddii jarto, oo wax isbedel aad u badan ay sameyso. laakiin Najlaa ay saaxiibadeeda isugu dhawaayeen waxay isku dayday inay ogaato sababta inanta Iimaan la dhahdo ay u bedelantay. laakiinse markasta ay weydiisay waxay ku oran jirtay maxaa ku bedelay Iimaan, se waxay ku qeylin jirtay, waxay ku oran jirtay maxaa kaa galay, amaba si xun bay ula hadli jirtay. laakiin Najlaa maadaama ay saaxiib lilaahi ahaayeen, ay kasoo qaatay inay walaasheed kale ay tahay, kamaysa xanaaqa jirin. laakiin waxay isku dayi jirtay waxaan Iimaan mar khaliya bedelay. adigu sida ahayd waxaa la soo gaadhay xilligii imtixaankay galayeen, in exaamada ay jaamacadda u socdeen ayay gaadhay. saaxiibtinimo daraadood labadooda faamili, Najlaa iyo Iimaan labadooda faamili waxay gaadheen inay isku ogolaadaan inay habeenkii macala isla seexdaan maadaama ay saaxiib xoog ay haayeen. kadib adigu markay exaamkii la gaadhay, habeenimada exaamka, marna guriga Najlaa marna guriga Iimaan baa la seexan jiray. iminka guriga Iimaan ayay Najlaa la seexatay. kadib waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid iyagoo wada dhiganaya, Najlaa waxay Iimaan weydiisay ku tiraahday sabab ma adigu aad u dareemi weyday daal badan iyo madax xanuun badan marka wax dhiganno oo ana kula seexda intaa la dareemin, waa maxay? Iimaan Najlaa waxay isku dayday inay markasta intaa ku weydiiso Iimaan, laakiinse markii dambe Iimaan waxay ku tiraahday kaliin bay soo qaaday, waxay ku tiraahday kaliinkaas hoo cun intaana waxbarashada bilaabin. kadib Najlaa kaliinkii bay cuntay ilaa intii imtixaanku socday. waxay isku daysay inay kaliinka cunto, kadib kaliinkii bay waday. adigu markii la gaadhay inuu imtixaanka dhamaaday ay Najlaana gurigooda ku laabatay. waxay gaadhay heer ay intii la hadasho Iimaan ay ku tiraahdo Iimaan waxaad ii sheegtaa kaliinkii ayaan u baahday, saa daraadeed waxay ii sheegtaa halka lagu iibiyo, walaaladii baan rabaa si ay igu soo iibiyaan. laakiin Iimaan way khalkhashay, waxay ku tiraahday yaa maxaa codkeeda waa isku khalkhalay, kaliinka iska daa waxaasi ku waaratay. laakiinse Najlaa way yaabtay markay inta ku tiraahday walaalada ha u sheegin, cidna ha u sheegin, kaliinkay waxaan aniga iga soo doono ama baanaa ku keenaya. Najlaa way yaabtay, tiro maxaa kaliinka ku jira ay u qarinaysaa Iimaan. adigu anyway way iska dhigtay telefoonkii, waayadu waxay aad u rabtay kaliinka.
sidii caadi ahayd gurigoodii u tagi jirtay, ina gurigooda ugu iman jirtay, way isku iman jireen. maalin maalmaha ka mid ah idiyo Najlaa iyo Iimaan ay iska fadhiyaan iska sheekaysanayaan ayaa waxaa dhacday idiyo balsi bilaa idina amaba bala ixtiraama waxaa ugu soo galay adeerkood Iimaan. Najlaa way sara booday, way kacday, cabaayadiiba degdeg ku xidhatay, way naxday. Iimaan buu weydiisay. Iimaan oo markay aragtay wejigeedii qosliya ay ku leedahay maxaa kuu dhacay, waayo ninkani. Iimaan waxay ku tiraahday Najlaa caadi iska soo fadhiiso, waa adeerkaygan ku baraya. Najlaa waxay isku dayday inay qayliso, inay ku tiraahdo deeta Iimaan waxay ka baqatay in xaafadooda ay maqasho. deeta adeerkeed waxay ku tiraahday iska bax. kadib Najlaa degdeg bay cabaayaddeeda u xidhatay, xaafadooda degdeg ku tagtay. kadib waxay isku dayday maalintaas inay cilaaqadeedii saaxiibtinimo ay lahayd ay jarto Iimaan, oo ay bartaa mar dambe nolosheeda aynay xiriir dambe la sameyn. markii saa go-aan ku gaadhay inay jarto go-aan xiriirkii saaxiibtinimo ay la lahayd Iimaan, waxaa kasoo wareegay 2 cisho, haddana 3 cisho. intaas Iimaan Najlaa waxay xamil kala leedahay, waxay leedahay maadaama ay la qabsatay kaliinka ay siin jirtay Iimaan, saa daraadeed waxay ishayn kari weeday. kadib waxay bilowday markay 10 cisho kasoo wareegeen inay iyadii u tagto gurigii Iimaan oo iska dhigto qof iyadii dambi lahay kale oo iraali geliso ay ku tiraahdo saaxiibtinimadeeni waxaynu inoo soo dhicin. ay bartaa saaxiibtinimadooda kasii bilaabantay haddana. kadib Najlaa iyo Iimaan bartii haddana saaxiibtinimadooda kasii bilaabantay. adigu sida u haayeen wada joogan ayaa maalmaha ka mid ah Iimaan Najlaa waxay u timaaday Iimaan iyo kusiisaga wada jooga ay Iimaan xaqaraacday adeerkeed. waxay ku tiraahday adeer yani sida caadi ahayd buu isaga kaliin ku keeni jiray. horta intaan kaliin ku keenin waxay u sheegtay Najlaa inay waxaan cunayso inuu yahay mukhadaraad ee aanu kaliin ahayn. Najlaa way naxday, shoog baa ku dhacay. waxay ku tiraahday maxaad igu sheegi weyday markii aad siinaysay. waxay ugu jawaabtay Najlaa, waxay Iimaan ugu jawaabtay markaad aniga u ceelisay adigu tiraahday anigu marka wax dhiganayo dawaqaad marka anigu wax aan dhiganayo madax xanuun iyo daal badan waxaan dareemayaa. adigu kun jeer ugu ceelisay ku tiraahday maxaad dareemi weyday wadin cadige ayaan uu ku siiyeen ku raad bal ilaahay tajaabiso waa intaas oo maskaxdii waxaan ka kala degtay ahab noqotay. sadaradeed baan ku siiyay aanan kugu sheegin. adoo sida haataba maadaama ay ku noqotay ay la qabsatay jirkeedii oo laga maarmaan noqon weydin iska goyso. Najlaa iska aamusta markii dambe. haddaba iyagoo sidii maalinta wada jooga waxaa dhacday Iimaan inay wacday adeerkeed oo ay ku tiraahday sida caadadu ahayd kaliinkii keen ama mukhadaraadkii. kadib waxaa dhacday wuxuu ku idhaahday waayahay shardi waaxid haddii rabtiin aan ku keeno Najlaa waanaan arkaa. Iimaan hadalku adeerkeed ka yiraahdo ka xanaaqday, way naxday, wuxuu ku tiraahday ma ku ogoli. kadib wuxuu ku dhahay waayahay aniguna dib u dambaysa haba yaraatay ma arkasta kaliya dambe aan ku keenaya. Iimaan ku fikir buu ku dhaaday, way dhigtay telefoonka Iimaan. waxay tiraahday maadaama uu jirkaaga la qabsaday mukhadaraadkani oo aan xamili karin oo adeerkaaga khaliya cid kale aan ku soo qaadi jirin, adeerka mooyaane ku soo qaadaya isagaana garanaya aan jirin, maadaama uu arkayo khaliyaatay ay tahay arag khaliya marka uu galo. kadib uu ku celisay adeerkeed. wuxuu ku tiraahday waa sax waan waafaqay insha Allah noo keen. way buu dhahay oo ku dhigay sidii caadada ahayd. Najlaa iyo iska wada sheekaysanaya Iimaan waxay bilowday maadaama ay adeerkeed khad isla ogaayeen waxay bilowday waxayna garanaysay Najlaa inay aan qof muxrinkeed ahayn in qolka ugu soo galo ay iyadu diidi doonto. marka waxay bilowday inay casiirkii u yaalay intay soo qaato ay kaliinka hurdada ugu dhex rido. kadib Najlaa way siisay, way cabtay. markay 2 saacadood ka soo wareegeen waxay dhacday inay seexato Najlaa. markay isaa seexatay Najlaa Iimaan waxay isku dayday inay adeerka qaraacdo ay ku tiraahdo way seexatay. sheekadu markay ahayd 12 saacadood kadib bay soo kacday Najlaa.
waxay aragtay inantii iimaan saaxiibadeed wajigeedu bedelan oo naxsan. waxay ku tiraahday saaxiib maxaa kugu dhacay se maxaa ani mar khaliis seexiyay awalba watan wada sheekaysan jirnay maxaa igu dhacay wata ku tiraahday 12 saacadood baan hurday wata tiraahday toloma kininkii aan cunug tasan ku galay maxaa dhacay hadii shoog hayo ay xaafada tagtay markii door cisho taxisho meelaha ka soo wareegeen haddana week ka soo wareegay waxaa dhacday in Najlaa dawaqad badan iyo matag ay bilowdo. markii saaxiibadeed la hadashana saaxiibadeedna waxay ku jawaabtaa idina markii inta u sheegto saaxiibadeed markii way fikirtay way garatay way naxday waxay kadib hadalku isdhaafsaa. kadib waxa dhacday inantii waxa ku soo noqota xanuunkii dawaqadii matagii ku soo noqda. kadib saaxiibadeed bilaa sheekh ku tiray saaxiibay saasay jirta kadib ma adkaysan karo dhakhtarkan tagay kale raac sidii caadadeed meel kasta isku raac jireen wadooda. kadib Najlaa waxa la hadashay iimaan waxa ku tahay inay mari laakiin si iimaan yaa goys karna sino xisma kadib koobo staafsa waxa ku tahay kuma raac karo. Najlaa telefoonka u dhigtay waayahay way yaabtay inta meel kasta isku raac jirteen maxaa ku dhacay maxaa bedelay. kadib inantii sidii soo dhahay dhakhtarkeeda ka tagtay subaxnimadkii markay tagtay waxa dhacday in inantii la gaaray xiriga jawaabta la siinay magaceeda la sheegay soo kacday jawaabtii markii la siinay waxa lagu yiraahdo un hadal yani dhurku la gariiray oo la yaabtay la naxday ay qaadan weyday laakiinse ugu dambeyntii waxay noqotay inay qaadato hadalka la yaabtay wuxuu dhakhtarku ku yiraahday mabruuq ilma yar caloosha kugu jiro. kadib inantii way naxday u qaadan wada ku tiraahday anigu ma guursan gurina ma lihi ilma yar soo yeelan kara. kadib dhakhtarku wuxuu ku yiraahday jawaabtan waa jawaabtaadii waana adiga. kadib waxa la hadlay kuwii shaybaarayaasha dhan ee dhakhtarka joogay dib loo soo baaray laakiin si jawaabtu waxay noqotay sidii tii hore bay noqotay. Najlaa video wareersan shooq saaw qalashay markii dib waxay isku dayday inay iska baxdo markii loo sheegay ay jawaabtina ay lagu yiraahdo waa tahay waa saa way jawaabtu ay waxay markii u sugtay saaxiibadeed ay isku dhawaayeen iimaan markay tagtay waxay ku tiraahday saaxiiboy maanta wax war xun baa la sheegay warkaasina waxa weeyaan in dhakhtarka markaan tagay saa lagu yiraahday waxaana lagu yiraahdo urba leedahay laakiinse iimaan way foorarsataa hadalkeedu way maqlaysaa laakiin waxba ka sii yani dib u naxsan tahay. kadib Najlaa waxay ku tiraahday saaxiib saasa jirtay la tiri xaafadeedu way dilaysaa waxaan sameey karamayo ma dhigta maxaa sameeya. iimaan markii ka yaabtay Najlaa markii ka yaabtay saaxiibadeedan inay tahay waxay isku dayday inay weydiiso wuxuu ku tiri saaxiib ma waxa jira wax aniga aan ogeyn idiga qarmis ii sheegay jiraan wax idiga qarmis oo ku cilcilisay. markii dambe iimaan waxay bilowday inay sheegto arrintii ay tiraahdo saaysaasa jirtay adeerkay wuxuu yiraahday kaliya tan wax rabeyna arko khaliya aniguna clean baan kugu daray sheekadii dhan bay sheegtay way u qaadan weyday inantii way ku qaylisay wax kasta sameysay ma hadalba wax u taraya inta kalena wuxuu ku tiraahday saaysaasa jiraan waxba qalad malihi yani intaas oo khaliya ku yiraahday laakiin ma gareyn waxaan sameynayo. inantii markii dambe ugu dambeyntii guriga iska soo baxday gurigooda bay timaaday. kadib markii la joogo dhowr cisho kadib haddana bil ka soo wareegtay waxa ay gaadhay xilli ay inantii caloosheeda soo baxdo. kadib inantii waxay bilowday inay isqariso inay marooyin waaweyn xidhato. ugu dambeyntii xaafadeeda ogaatay. kadib waxaa dhacday in dhakhtarkii ugu dhawaa xaafadeeda la geeyo oo hubiyo oo kadibna loo sheegay inuu beebi yar yahay calooshka soo kadib inamadii 3 nimood hooyadood aabood inta beenantii gacan baa loo qaaday. kadib markii gacanta loo qaaday waxa uu hagooda dhakhtarka gashay la geliyay. kadib ilmihira nabad buu ku yimaaday laakiinse tagu naxdinta badnay waxay ahayd ilmo yar oo aan la garanay xiriga ad qaatay. ilmihii markii soo dhashay markii gaadhay xiriga dhashay ilmadoodii baa qaaday ilmihira masaajid ka fog guriga degnaayeen oo ka baxsan kaltoon intii ilmihii ku rideen ay masaajid ka hordhigeen isaga yimaadeen. kadib markay ka yimaadeen inantii dhakhtarka laga saaray
inanta waxay birooday inay sheekada sheegto oo inadooda sheegto ay tiraaday inantana saaxiibkan ahayn ee weligeed yaraantii ilaa imiga hadda isla soo kornay ayaa say gashay oo sheekadii dhan wada sheekaysay mukhaadaraadkii iyo wixii oo dhan wada sheekaysay kadib waxaa dhacday ugu dambeyn xaafadii jeel maxkamad xaafadii waa la islaayay waa jeel bilaay meelba lasla wada galay qisadina markii xaafadii jeel iyo salasla wada galay waxa de ilaahayna qadarkiisa lama soo celin karo Soomaa kadib Najlaana ugu dambeyntii qisadeeda si ku dhamaatay laakiin hadda ma garanayso ilmaheeda yaraa halku joogo ama intuu leeyahay ama cid la nool yahay hadda qisadeeni saasay ku dhamaatay lagu sheegayaa qisadan yani de qisa kasta waxba laga saartaa Soomaa qisadan waxaad ka saaranaysaa yani qof yani wada khalada ku guridiya iska ilaalisa inaan saaxiib la noqon markaas hadii jeer hadaba waxa laga baahan yahay inaad ogaatid qofka saaxiibka aad la noqonaysid wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh hadaba hada fiidiyooga ka hesho waxaan kaga baahan yahay insha Allah inaad fiidiyoogan aad like subscribe and share aan intaba insha Allah samaysid insha Allah fiidiyooga ku xiga wax cusub iyo fiidiyoo kale cusub insha Allah aynu rajaynaa bye bye. You're one, you're two, this is my life, baby.